nolosha Lauren Ashley waxaa si naxdin leh u soo gaabiyey fal xun oo uu geystay qof ay markii hore si weyn u aaminsanayd. Xilli dambe oo habeen ah, Malcolm Ashley wuxuu helay wicitaan naxdin leh. Gaadhigii gabadhiisa ayaa laga helay meel baabuurta la dhigto oo u dhow xeebta magaalada. Isagoon ka labalabayn ayuu ku degdegay goobtii, isagoo aad u rajaynayay inuu weli badbaadin karo haddii ay dhibaato ku jirto. Toosh ayuu gacanta ku qaatay, wuxuuna dhex lugeeyey hareeraha xeebta, isagoo dhex eegaya hirarka mugdiga ah si uu u helo wax calaamad ah. Laakiin meelna laguma arag. Dugsiga dhexdiisa dad badan ayaa u khushuucsanaa labadooda, Nathaniel Fuja oo ahaa nin dheer oo ciyaaraha ku fiican, iyo Lauren Ashley oo ahayd gabadh yar oo firfircoon. Sannado badan ayay isgaranayeen, laakiin ilaa sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare ma ayna bilaabin inay is-shukaansadaan. Waxay ku bilaabatay jacaylkii koowaad oo ay ka buuxaan dhunkasho iyo riyooyin ay wadaagaan, kaas oo socday muddo 3 sano ah. Maxaa dhacay xilligaas kadib? Maxaa sababay inay kala tagaan? Maxayse runta ugu adkaatay dadka inay aqbalaan? Aan u guda galno sheekada maanta. Lauren waxay dhalatay 1dii bishii afaraad sanadkii 1993 magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, waxayna u dhalatay Mary iyo Malcolm St. Labadeeda waalidba waxay ahaayeen macallimiin, waxayna u ahayd udub dhexaadka noloshooda. Tan iyo yaraanteedii waxay ku barbaariyeen muhiimadda ay leedahay runta iyo daacadnimada, iyagoo rajaynayay inay u korto gabadh naxariis badan oo leh mabaadi' suuban. Sanadkii 2006 Mary iyo Malcolm way kala tageen. Inkasta oo ay kala tageen, haddana waxay ku midoobeen jacaylka iyo taageerada gabadhooda. Waa wax lala yaabo in laga fikiro inay jirtay 18 sano oo keliya, haddana nolosheedii waxaa horay uga buuxay firfircooni, hadaf iyo guulo. Lauren mar walba waxay ku jirtay hawl. Waxay la heesi jirtay koox muusig sameeya, waxay ciyaari jirtay tenniska iyo kubadda cagta, waxay ku jirtay kooxda heesta ee kiniisadda, waxayna ku biirtay kooxda muusikada ee dhalinyarada. Waxay u shaqayn jirtay hagaha xeryaha dhalinyarada, waxayna xataa jishay doorkii ugu weynaa ee riwaayadda caanka ah ee Annie. Jadwalka Lauren mar walba wuu buuxay. Waxay u muuqatay mid aan lahayn wakhti firaaqo ah sababtoo ah mar walba hawl ayay ku jirtay. Inkasta oo dhererkeedu ahaa 4 cagood iyo 11 inji oo keliya, haddana dabeecadeeda firfircoon iyo quruxdeeda gaarka ah waxay ka dhigtay qof aan weligeed la ilaawi karin. Hamuunteeda ugu weyn ee dhanka farshaxanka waxay ahayd jilitaanka iyo bandhiga. Iyadoo haysata cod xooggan oo qurux badan, waxay ka heesi jirtay ku dhowaad munaasabad kasta oo dugsiga ama bulshada dhexdeeda ah. Inay noqoto hoggaanka kooxda heesta ee dugsigeeda sare waxay u ahayd xilli ay aad ugu faraxday. Muusikada ka sokow, Lauren waxay wakhtigeeda u huri jirtay qabanqaabada munaasabadaha iyo ka qaybgalka howlaha samafalka ee kala duwan. Caawinta dadka kale, hadday yihiin ehel, saaxiibo ama dad aysan aqoon, waxay u ahayd nuxurka nolosheeda. Ardaydii ay isku fasalka ahaayeen waxay ku ixtiraami jireen daacadnimadeeda iyo sida ay qof walba u soo dhoweyn jirtay. Dadku waxay ogaayeen inay Lauren u tegi karaan marka ay dhib qabaan. Mar kasta oo gargaar la weydiistona, waxay bixin jirtay dadaalkeeda ugu dambeeya. Markay jirtay 12 sano oo keliya, waxay u safartay magaalada New Orleans si ay u caawiso dadkii ay saamaysay duufaantii Katrina. Waxay halkaas ku laabatay 2 jeer oo kale iyadoo saaxiibadeeda wadata si ay u caawiso dadka fatahaaduhu saameeyeen, taas oo muujisay in xataa iyadoo yar ay danta dadka kale ka horraysiin jirtay danteeda. Falalkan naxariista leh waxay wax badan ka sheegayeen dabeecadeeda iyo go'aankeeda adag. Diiranaanteeda iyo nuurkeeda guduhu wuxuu taaban jiray qof kasta oo ay la kulanto, ha noqdeen waalidiin, saaxiibo, macallimiin ama xataa dad shisheeye ah. Dugsiga sare ee Wayland, Lauren laguma aqoon keliya dadaalkeeda waxbarasho, laakiin sidoo kale waxaa u dheeraa ka qaybgalkeeda nolosha dugsiga. Waxay ka qayb qaadan jirtay ciyaaraha, bandhigyada, tartamada iyo adeega bulshada, iyadoo raad wanaagsan kaga tegi jirtay meel kasta oo ay tagto. Muddadii ay dugsiga sare ku jirtay, Lauren waxay noqotay qof madax bannaan, saaxiibada qaarkoodna waxay u arkayeen inay tahay qof lagu daydo. Firfircoonideeda iyo dabeecadeeda soo jiidashada leh waxay dad badan ku dhiirigelisay inay rabaan inay iyada oo kale noqdaan. Xilligaas ayay bilaabeen inay is-shukaansadaan Nathaniel Fuja, kaas oo ahaa jacaylkeedii ugu horreeyey ee dhabta ah. Nathaniel oo isna dhiganayay isla dugsiga sare ee Wayland, wuxuu Lauren yaqaanay tan iyo carruurnimadoodii. Wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu caansan kooxda kubadda cagta ee dugsiga, waxaana lagu yaqaanay orodka, dhererka iyo xirfadda ciyaaraha.
Nateenka wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu caansan ee gabdhuhu u sacbin jireen marka uu ciyaarayo, laakiin wadnihiisu wuxuu u garaami jiray keliya Lauren Ashley oo ahayd gabadh faraxsan oo nolosha jecel. Wuxuu ahaa wiilka kaliya ee ay dhaleen Beth iyo Tom Fuja. Tom wuxuu ahaa gitaaryahan hibadiisu sarayso oo aad loo yaqaan, sidoo kalena wax ka dhigi jiray kuliyadda muusikada ee Boston. Guulaha uu dhanka muusikada ka gaaray ayaa ka dhigay qof bulshada dhexdeeda si weyn looga tixgeliyo. Sanadkii 2010, Lauren waxay waraysi u samaysay Tom Fuja si ay ugu adeegsato mashruuc dugsiga ah, kadibna waxaa la soo dhigay baraha bulshada ee YouTube. Xiriirkii ay la lahayd Nathaniel dartiis, waxay noqotay qof aad looga jecel yahay guriga Beth iyo Tom, markastana booqan jirtay. Waalidiintooduna waxay noqdeen kuwo isbartay oo xiriir joogto ah leh. 2 sano ee u horeeyay, wax kasta oo ka dhexeeyay Nathan iyo Lauren waxay u socdeen si deggan. Waqti badan ayay isla qaadan jireen iyagoo ciyaaraya, sheekaysanaya, kana helaya nolosha macaanka ee dhalinyaranimada. Dad badan ayaa u haystay inay yihiin kuwo aad isugu habboon. Laakiin waqtigii oo socday, waxaa bilowday dildilaa. Ismaandhaaf ayaa soo dhex galay, xiriirkoodiina wuxuu noqday mid deganaansho la'aan ah. Waxay galeen xaalad ah inay isqabtaan, kala tagaan, haddana isku soo laabtaan, iyadoo wareegaas uu mar kasta soo noqnoqonayo. Maalin waxay noqon jireen kuwo isjecel, maalinta xigtana waxay noqon jireen kuwo wax kasta oo qofka kale sameeyo ay ka xanaaqayaan. Xiriirada noocan ah maaha kuwo ku cusub dadka dhexdiisa, xataa kuwa waaweyn. Nathaniel wuxuu ahaa mid soo jiita gabdhaha kale. Inkastoo ay taasi jirtay, haddana aad buu u maseeri jiray, wuxuuna rabay inuu Lauren isagu iska yeesho. Mararka qaarkood wuxuu dareemi jiray inay Lauren dadka kale siiso waqti iyo tixgelin ka badan inta ay isaga siiso. Sanadkeedii u dambeeyay ee dugsiga sare, Lauren waxay bilowday inay si dhab ah uga fikirto mustaqbalkeeda, halka ay u socoto iyo jaamacadda ay dhigan doonto. Xilligaas ayay ogaatay in Nathan uusan ku habboonayn nolosha ay mustaqbalka higsanayso. Waxay ku daashay culayska dareen ee xiriirkoodu keeno, waxayna bilowday inay ku fikirto inay gabi ahaanba soo afjarto. Sanadka u dambeeya dugsiga sare badanaa waa xilli isbeddel weyn laga dareemo nolosha, waana tallaabadii u dambaysay ee loo qaado dhanka weynaanshaha. Markay qofka dadiisu tahay 18, dunidu waxay u muuqataa mid furan oo ay ka buuxaan fursado guul laga gaari karo, dhismo mustaqbal shaqo, la kulanka dad cusub iyo tijaabinta waxyaabo xiiso leh. Lauren, tallaabada xigta waxay ahayd gelista jaamacadda, aad bayna ugu degdegaysay. Lauren waxay codsi u dirtay jaamacadda Elon ee waqooyiga Carolina, halka Nathaniel uu doortay kuliyadda Trinity ee gobolka Connecticut, halkaas oo looga yeeray inuu u ciyaaro kubadda cagta, taasoo ahayd riyo uu soo siday tan iyo carruurnimadiisii. Saaxiibada Lauren waxay la socdeen dhibaatada ka dhex taagan xiriirka iyada iyo saaxiibkeed, waxayna doonayeen inay caawiyaan. Wadajir waxay u sameeyeen liis ay ku qoran yihiin sababaha ay tahay inay u soo afjarto xiriirka ay la leedahay Nathan. Sababahaas waxaa ka mid ahaa xanaaqiisa dhow, maseerka daran ee uu qabo, dhaqankiisa qalafsan, iyo mararka qaarkood ixtiraam darrada uu u muujiyo hooyadiis. Kadib markii ay si dhab ah uga fiirsatay, Lauren waxay go'aansatay inay soo afjarto jacaylkii ay dugsiga sare ku lahaayeen bishii Abriil ee sanadkii 2011, iyadoo ay ku beegan tahay dhalashadeedii. Ayay xiriirka u jartay Nathan maalin ay u aragtay inay tahay mid ka mid ah maalmihii ugu wanaagsanaa nolosheeda. Waqtigaas wuxuu ahaa mid ku habboon maadaama ay labaduba xagaaga u kala bixi lahaayeen jaamacado kala duwan, waxayna u muuqatay fursad dabiici ah oo ay noloshooda ku kala kaxaystaan. Laakiin dhanka Nathaniel, kala tagaasi wuxuu ahaa naxdin weyn. Uma arkayn fursad cusub oo nololeed, wuxuuna u arkay khasaare weyn oo soo gaaray. Deeqdii waxbarasho ee jaamacadeed ee uu mar ku riyoon jiray hadda muhiimad uma lahayn. Waxa keliya ee uu maskaxda ku hayay waxay ahayd xiriirkii Lauren Ashley. Wiilkii markii hore firfircoonaa ee dadaali jiray, mar walbana tababarka samayn jiray, wuxuu bilaabay inuu isdhex galo oo uu cidlo doorto. Wuxuu waqtigiisa inta badan ku qaadan jiray fadhiga isagoo u muuqda qof niyadjab iyo murugo ay hayso. Wuxuu joojiyey dhexgalka dadka, saaxiibadiis ayuu ka fogaaday, wuxuuna iska daayay hawlihiisii caadiga ahaa. Muddadaas wuxuu bilaabay inuu cabo khamri badan iyo inuu isticmaalo xashiishad maalin kasta. Inkasta oo Lauren ay bilo ka hor soo afjartay xiriirka, haddana waxay ka walwalsanayd xaaladiisa. Ma doonaynin inay aragto qof ay mar aad isugu dhowaayeen oo dhibaataysan. Marar dhowr ah ayay saaxiibadeed weydiisay inay la xiriirto oo ay isku daydo inay caawiso. Mar kasta waxay kula talin jireen inaysan sidaas samayn, iyagoo uga digayay inaysan siin wax sabab ah oo
uu ku aamino in xiriirkoodu dib u soo laaban karo xagaagii sannadkii 2011 kadib markii ay qalin jabiyeen. Lauren waxay aad u doonaysay inay ku raaxaysato bilooyinkii u dambeeyey ee ay guriga joogto iyadoo ay hareereeyeen ehelkeeda iyo saaxiibadeed si loogu dabaaldego bilowga cutubkan cusub ee nolosha. Saaxiibadeed waxay dhigeen xaflad weyn. Teendho weyn hoosteeda waxaa isugu yimid qiyaastii 150 arday oo qalin jabiyey. Nathaniel oo ahaa saaxiibkii hore ee Lauren ayaa ka mid ahaa dadkaas. Halkaas ayay ka ciyaarayeen oo ay ku qoslayeen intii ay Lauren la sheekaysanaysay saaxiibadeed. Nathan oo aad u sakhraansan ayaa u soo dhowaaday isagoo isku dayaya inuu ka baryo inay dib u heshiiyaan. Lauren waxay si adag ugu sheegtay inuu faraha ka qaado oo uu keligeed u daayo go'aankeeda. Maskaxdeeda wax kasta oo ka dhaxeeya mar hore ayay ka dhammaadeen, mana jirin sabab ay dib ugu soo celiso sheekadii kala taga. Waxay ka wada hadleen marar badan, waxayna diyaar u ahayd inay nolosha horay ugu sii socoto. Waxaa intaas dheer, waxay ogeyd in xaaladda sakhraannimo ee uu Nathan ku jiray awgeed uusan wax qiimo leh kaga jawaabi doonin hadalkeedii. Laakiin Nathan uma adkaysan karin fikirka ah inay Lauren qof kale la socoto, isagoo gebi ahaanba diiday inuu aqbalo go'aankeedii ahaa inay kala tagaan. Wuu sii dhibay, culays badanna wuu saaray. Markay dhibaatadii badatay, Lauren waxay bilowday inay ooydo, iyadoo saaxiibadeed u sheegtay inuu iskaga hari laayahay. Habeenkiiba wuu daba socday, isagoo go'aansaday inuu ka hor istaago inay cid kale la ciyaarto ama la sheekaysato. Daqiiqad kasta oo dhaafta, cadadiisa ayaa sii kordhaysay, isagoo khamriga uu cabbayna uu sii kicinayay. Markii ay Lauren mar kale diiday inay la hadasho, Nathan wuxuu ku soo dhex galay si xoog leh, wuxuuna ku dhuftay mid ka mid ah tiirarkii teendhada isagoo adeegsanaya xooggiisa oo dhan, taasoo keentay inay teendhadii dunto. Inkastoo markiiba teendhadii kor loo qaaday oo dib loo hagaajiyey, haddana jawigii xafladda ayaa gebi ahaanba isbedelay. Ma ahayn Lauren oo keliya, laakiin qof kasta oo xafladda joogay ayaa Nathan ku yidhi, iska bax. Dabaaldegii oo dhan halkaas ayuu ku si fool xun ugu xirmay. Habeen dambe, Lauren waxay hooyadeed u sheegtay dhaqankii Nathan, iyadoo u sharaxday inuu diiday inuu iska daayo faragelinta go'aankayga. Aad buu iigu cadhaysnaa maadaama aan xiriirka u jari. Waayo wuxuu ka xumaa inaysan la hadlayn. Wuxuuna dareemay qaraar markii uu arkay inay laantiis faraxsan tahay. Muddo kadib arrimihii waxay u muuqdeen inay degayaan. Lauren waxay go'aansatay inay shaqo ka bilowdo dukaan dhar lagu iibiyo si ay lacag u hesho ka hor intaanay jaamacadda aadin. 3 bishii toddobaad sannadkii 2011 waxay shaqada tagtay 10kii subaxnimo. Kaamirooyinka ilaalada ayaa duubay iyadoo galaysa suuqa 9:45 daqiiqo, ayna kor ugu baxday wiishka socda. 6:45 daqiiqo oo galabnimo, shaqadeedii way dhammaatay, waxaana la arkay iyadoo dhismaha ka baxaysa iyadoo taleefan ku hadlaysa. Waxaa naxdin leh inay tani ahayd markii ugu dambaysay ee qof uu arko iyadoo nool. Waxay qorshaysay inay saaxiibadeed la kulanto si ay u lugeeyaan shaqada kadib, laakiin marnaba ma imaan. Saaxiibadeed markiiba waxay dareemeen walwal. Tani ma ahayn dabeecaddii Lauren. Haddii wax ku soo kordhaan oo ay iman weydo, had iyo jeer waxay heli jirtay wado ay ku soo ogeysiiso. Aabaheed Malcolm isna wuu walwalsanaa. Wuxuu ogaa inay qorshaysay inay guriga timaado shaqada kadib si ay dharka u beddelato, kadibna ay saaxiibadeed la kulanto, laakiin marnaba guriga ma imaan, taasoo ka duwanayd hanaankeedii caadiga ahaa. Aabaheed markiiba wuxuu dareemay in wax ka xun yihiin, waqtina siima lumin. Wuxuu markiiba wacay booliiska si uu u sheego inay gabadhii la laayahay. Warkii ku saabsanaa lumitaanka Lauren Ashley si dhaqso ah ayuu magaalada ugu faafay, taasoo saaxiibadii iyo dadkii aqoonta u lahaa ka dhigtay kuwa aad u walwalsan. Ma jirin qof arkay tan iyo markii ay suuqa ka baxday. Sida caadiga ah, boolisku waxay sugaan muddo cayiman ka hor intaanay bilaabin baadhista qofka la laayahay, laakiin halkan wax kastaaba waxay u dhaceen si degdeg ah. Saaxiibada iyo qoyska Lauren ma ay sugin uun inay soo laabato, balse waxay si firfircoon u raadiyeen gargaar. Isla markii uu aabaheed Malcolm la xidhiidhay maamulka, baadigoobka ayaa bilaabmay. Habeenkaas qudhiisa, boolisku waxay heleen baabuurka gaduudan ee Lauren oo noociisu ahaa Jeep, kaas oo yaalay xeebta Wantown isaga oo daaqadihiisu ay hoos u furan yihiin. Tani waxay ahayd daahfur muhiim ah. Gudaha baabuurka waxaa yaalay boorsadeedii iyo kombuyuutarkeedii, laakiin Lauren raq iyo ruux meelna laguma arag. Ma jirin wax raad ah oo muujinaya halka ay Lauren aaday kadib markii ay baabuurkeeda kaga tagtay xeebta magaalada iyada oo daaqadihiisu ay furan yihiin.
daqiiqadii uu aabbaheed Malcolm maqlay warka ku saabsan helidda baabuurka ayuu goobta ku yaacay isaga oo si toos ah uga cararay baabuurka ilaa uu ka gaadhay biyaha. Wuxuu u muuqday sidii isaga oo weli haysta fursad uu ku badbaadin karo haddii ay dhibaataysan tahay gabadhiisa. Kaasi waa dareen waalid. Allah u naxariisto waalidiinteena soo qora amiin. Wuxuuna isaga oo toosh gacanta ku haysta uu ka baadhay hareeraha xeebta, laakiin meelna laguma arag. Saaxiibada Lauren oo aad u naxay kadib markii ay maqleen helidda baabuurkeeda gaduudan ayaa habeenkii oo dhan ku qaatay xeebta iyaga oo rajaynayay inay soo muuqato. Waxay fadhiyeen hareeraha xeebta iyaga oo aan waxba qabanayn marka laga reebo inay sugayeen oo ay isweydiinayeen halka ay ku dambayn karto. Xilligaas midkoodna kuma uu fikirin suurtogalnimada in dhibaato loo geystay. Boolisku waxay bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan saaxiibada dhow iyo qoyska Lauren iyagoo isku dayaya inay ogaadaan haddii uu jiro qof suurtagal ay tahay inuu dhibaatayn karo ama xoog ku kaxayn karo. Markii hore qofna ma uusan soo xasuusan karin qof qudha oo sidaas samayn kara. Si kastaba ha ahaatee, markii saraakiishu ay cadaadiska kordhiyeen, waxay ogaadeen inay dhowaan kala tageen saaxiibkeed. Inkasta oo ay taasi jirtay, dhammaan saaxiibada Lauren waxay ku adkaysteen in Nathan uusan dhibaatayn karin. Wuxuu noqon karay qof niyad jabsan oo kala taga ka xun, laakiin uma ay arkayn qof khatar ah. Boolisku waxay ogaayeen in maseerka iyo kala taga dhow ay inta badan noqon karaan sababo xooggan oo qof ku dhiirigeliya inuu fal dhib leh geysto. Waxay horeyba u garanayeen Nathaniel Fuja, isla fiidkaas oo qayb ka ahayd weydiimaha baadhista. Waxay tageen gurigiisa. Halkaas Nathan iyo hooyadiis Beth ayaa la hadlay saraakiisha. Wuxuu sheegay inuu guriga joogay wakhtigaas oo dhan, taas oo isaga siisay cudurdaar, inkasta oo uusan ahayn mid si gaar ah u adag. Nathan wuxuu u sheegay inay dhab ahaan is arkeen Lauren maalintaas. Sida uu sheegay, waxay agtiisa iska taagtay qiyaastii 5 daqiiqo, laakiin marnaba kama ay soo degin baabuurkeeda. Waxay yeesheen sheeko gaaban oo aan raaxo lahayn, kadibna way iska tagtay. Wuxuuna sheegay inuusan arkin wixii ka dambeeyey. Marka dusha laga eego, sheekadiisu waxay u muuqatay mid macquul ah. Saraakiishu waxay ogaayeen, si kastaba ha ahaatee, in kala tagu uu si weyn u saameeyey. Wuxuu noqday qof isku dhex xidhan, niyad jabsan, oo gebi ahaanba joojiyey inuu dibadda u baxo. Beth oo si weyn uga walwalsan wiilkeeda waxay u geysay Nathan dhakhtar cilmi nafsi, laakiin taasina ma ay keenin wax isbeddel dhab ah. Beth iyadoo aad u doonaysa inay ka caawiso wiilkeeda sidii uu ula tacaali lahaa kala taga saaxiibtiis, waxay xitaa tagtay suuqa weyn ee ay Lauren ka shaqaynaysay iyadoon u sheegin Nathan, iyadoo rajaynaysay inay hesho hab ay kula xiriirto. Waxay sidoo kale ka codsatay ninkeedii hore inuu la hadlo Nathan, iyadoo u malaynaysay inay taasi ka caawin karto inuu xakameeyo dareenkiisa islamarkaana uu bilaabo inuu ka bogsoodo dhaawaca niyadeed. Subaxdii xigtay, waxyar ka hor qorrax soo baxa, qof baaskiil wata oo marayay waddo u dhow wejiga hore ee jidka weyn ayaa la kulmay helitaan naxdin leh. Iyadoo maraysa meel dhiiqo iyo biyo leh, waxay aragtay wax ku dhex sabaynaya biyaha madow. Iyadoo aad u walaacsan ayay istaagtay oo u dhowaatay, waxayna ogaatay inuu yahay meydka gabadh dhalinyaro ah. Waxay ahayd Lauren Ashley oo meydkeeda laga helay masaafo qiyaastii 5 mayl u jirta magaalada. Habeenkii ka horreeyey, saaxiibadeed waxay ku urureen xeebta u dhow gaarigeedii yaraa ee guduudka ahaa ee laga tegay. Waxay weli isku dayayeen inay isku xiraan xogtii ku saabsanayd meesha ay aadi kartay. Ma aysan hayn wax jawaabo ah marka laga reebo cabsi keliya. Ardaydu wax kale oo ay sameeyaan ma ay hayn aan ka ahayn inay halkaas fadhiyaan iyagoo aan hubin wax ay sameeyaan, wax ay ku fikiraan, ama xitaa dareenka ay muujiyaan. Waxay ahayd wax aan macquul u muuqan in gabadhii ay shalay uun la qoslayeen oo ay wakhtiyada wadaagayeen ay maanta maqan tahay. Meydkeeda waxaa laga helay masaafo qiyaastii 30 cagood u jirta dababada, isagoo biyaha dhex sabaynaya. Markii xeebta la keenay, sababta dhimashada ayaa markiiba caddaatay. Markii mid ka mid ah baarayaasha booliska gobolka uu dib u laabay koodhkii ay xirnayd, wuxuu helay dhaawac weyn oo dilaa ah oo qoorta kaga yaalay. Lauren Ashley oo ahayd 18 jir, waxaa laga gowracay dhuunta, waxaana timaheeda ku dhex sirqanaa xadhig adag oo goy. Meydkeeda waxaa si degdeg ah loogu diray xafiiska baaritaanka caafimaadka. Intaas oo dhan, Malcolm Ashley wuxuu ku dheganaa rajo yar oo ahayd inuusan meydkaasi noqon gabadhiisa. Laakiin rajadii waxay meesha ka baxday markii uu wajahay hawshii qalbi jabka ahayd ee ahayd inuu aqoonsado meydka gabadhiisa keliya, taas oo ah wax aan waalidna loogu talagelin inuu u dulqaato. Lauren waxay uun u dabaaldegayeen dhalashadeedii 18-aad.
waxay ahayd qof firfircoon, hibona u leh muusiga, isla markaana taagnayd albaabka mustaqbal rajo leh. Malcolm waxay ahayd inuu soo bandhigo aqoonsi sax ah, laakiin daqiiqadii uu arkayba wuxuu ogaaday inay tahay Lauren. Xanuunku wuxuu ahaa mid aan loo dulqaadan karin. Haddana waxay ahayd inuu warka naxdinta leh u sheego hooyada dhashay Lauren, oo ahayd xaaskiisii hore. Warka naxdinta leh ayaa si degdeg ah ugu faafay magaalada oo dhan. Saaxiibadii mar u arki jiray Lauren iyo Nathan inay yihiin lamaane faraxsan ayaa la hadlay booliska iyagoo aan rumaysan karin waxa dhacay, waxayna ku adkaysteen in Nathan uusan marnaba waxaan oo kale u samayn karin haweeneyda uu jeclaa. Dad badan ayaa ku adkaatay inay rumeeyaan in xaaladdu ay dhab tahay. Laakiin boolisku waxay tuhunsanayeen si ka duwan taas. Markii ay la hadleen qoyska Nathan, waxay ogaadeen sida ay u saamaysay kala tagii isaga iyo gabadha. Ma uusan ahayn ciyaaryahankii kubadda cagta ee Ameerikaanka ahaa ee faraxsanaa ee dadka badani ay la dhici jireen, isagoo qalbi jabsan. Nathan wuxuu noqday mid cadho badan oo dadka ka dhex baxay. Ciyaartii uu ku riyoon jiray inuu ciyaaro tan iyo carruurnimadiisii ee kubadda cagta ee Ameerikaanka, hadda wax dan ah uma uusan lahayn. Beth waxay u sheegtay booliska inay u dhowaatay Lauren iyadoo rajaynaysay inay la hadasho gabadha si ay u dhiirigeliso wiilkeeda, iyadoo markaas doonaysay inay saaxiib dhow u noqoto. Waxaa suurtogal ah in Beth aysan aqoon u lahayn faahfaahinta buuxda ee xiriirka wiilkeeda iyo saaxiibtiis, taas oo sharxi karta ficiladeedii. Waxay u badan tahay inaysan wax fikrad ah u lahayn sida uu kulankaasi ku dhammaan doono. Lauren si kastaba ha ahaatee, muddo ayay ka welwelsanayd saaxiibkeedii hore, iyadoo dareentay isbeddel ku yimid dabeecaddiisa. Naxariistadeed awgeed waxay go'aansatay inay la kulanto Nathan si ay u eegto inay ka caawin karto inuu ka gudbo murugada haysata. Ma ay lahayn wax niyad ah oo ay dib ugu soo celinayso xiriirkooda, balse waxay dareemaysay xil inay iska saarto in uu joogto xilli adag oo uu marayo. Kaamirooyinka ilaalada ee suuqa ayaa qabtay Lauren oo taleefan ku hadlaysa xilli ay shaqada ka baxaysay. Diiwaanka taleefankeeda ayaa xaqiijiyey inay la hadlaysay Nathan. Waxay qorshaysay inay gurigiisa marto muddo 5 daqiiqo ah uun ka hor intaanay aadin gurigeeda si ay dharka u beddelato, kadibna ay saaxiibadeed la kulanto. Ma jirin cid ay u sheegtay qorshaheeda maalintaas. Waalidiinta Nathan guriga ma ay joogin. Markii ay gurigiisa timidna, waxay u dirtay fariin qoraal ah oo hal eray ah: halkan ayaan joogaa. Taasi waxay ahayd habka ay ugu sheegi jirtay inay u dhowdahay. Waxay noqotay fariintii ugu dambaysay ee ay Lauren abid dirto, waxaana la dhiibay 3 bishii 7, 6:05 daqiiqo oo fiidnimo. Guriga Nathan wuxuu ahaa meeshii ugu dambaysay ee lagu arkay iyadoo nool, taas oo booliska siisay raadkii ugu horreeyay ee cad. 4 bishii 7, saraakiishii ayaa ku laabtay si ay ula hadlaan Nathan, balse waa la waayay. Waalidiintiisuna waxay sheegteen inayna garanayn meel uu jiro. Haddana baaritaanku wuu sii socday. Maamulku waxay u baahnaayeen caddayn rasmi ah oo taageeraysa shaki ay ka qabeen in Nathan uu ku lug lahaa dilka saaxiibtiisii hore ee Lauren. Waxay si degdeg ah u heleen oggolaansho ay ku baaraan gurigiisa, iyagoo ka bilaabay garaashka. Wixii ay heleen ayaa markiiba muujiyey in wax aad u naxdin badan ay dhaceen. Marka laga soo tago xadhigga qoorta ugu xirnaa Lauren, saraakiishu waxay heleen raad dhiig ah oo badan oo yaalla sagxadda garaashka, gacanta albaabka, weelka jikada lagu dhaqo, iyo kan musqusha. Waxay u muuqatay in qof uu isku dayay in uu sifeeyo meelahaas. Qaybta hoose ee guriga, basementiga, baadhayaashu waxay ka heleen boorso isboorti oo madow oo ay ku jiraan kabo ay dhoobo badani ku dhigan tahay. Qaybta sare ee guriga, oo looga baxayo qaybta ka bilaabma qolka hurdada ee Nathan, waxay ka heleen kabo kale iyo dhar dhiig leh. Marka jaleecada hore la eego, dhoobada kabaha ku dhigan waxay u muuqatay mid la mid ah tan laga helay dhulka diiqada ah ee maydka Lauren yaalay. Tani waxay u baahnayd baaritaan shaybaar oo degdeg ah. Natiijadu wax shaki ah ma ay reebin. Dharka iyo kabaha Nathan waxaa ku yiilay dhiiggii Lauren, dhoobaduna waxay dhab ahaan ahayd tii aagaas diiqada ah. Kadib markii la helay caddaymahan, Nathaniel Fuja waxaa si rasmi ah loogu daray dadka la raadinayo. Waxaa laga helay guriga ina adeerkiis oo ku yaalay magaalo u dhow saacado yar kadib. Wax yar kadib saqbadkii 4 bishii 7, sanadkii 2011, ciyaaryahankii 18 jirka ahaa ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu eedeeyey dilka saaxiibtiisii hore. Markii boolisku ay Nathaniel Fuja ku xireen guriga habaryartii iyadoon wax digniin ah la siin, wuu aamusnaa mana ka jawaabin wax su'aalo ah intii la weydiinayay.
dabeecadan ka gonaanshaha ah waxay socotay dhowr bilood ilaa laga gaadhay bilowgii maxkamadiisa. Maxkamadayntii iyo xogaha cusub ee naxdinta leh, hadday ahaan lahayd cabsi uu ka qabay inuu hadal badan bixiyo iyo hadday ahaan lahayd inuu awoodi waayay inuu sharaxo falkiisaba, Nathan ma uusan bixin wax faahfaahsan. 23 bishii 8 sanadkii 2011, Nathan wuxuu hor yimid maxkamadda si loo dhagaysto dacwadiisa hordhaca ah. Markii la weydiiyey qiraalkiisa, wuxuu ku hadlay cod aad u hooseeya oo si dib leh loo maqli karo, isagoo sheegay inuusan dembi lahayn. Heer ilaaliyaha ayaa markiiba tuhunsaday in kooxda u doodaysa ay diyaarinayaan xeelad ku dhisnaan doonta in dhimirka looga jiro waali. Nathan waxaa lagu soo oogay dembiga ah dil heerka koowaad ah iyo weerar isugu jira garaacid loo adeegsaday hub khatar ah. Faahfaahintii ka soo baxday habeenkii dembiga, intii uu kulanku socday, waxaa soo baxay faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan habeenkii la dilay Lauren Ashley. Waxaa la ogaaday inay qabtay dhaawacyo dheeraad ah oo loo geystay ka hor dhimashadeeda. Habeenkii ka horreeyay dembiga, Nathan wuxuu taleefan u diray ina adeertiis isagoo ku martiqaaday inay wada joogaan. Markii ay diiday iyadoo sheegtay inay qorshayaal kale leedahay, Nathan wuxuu noqday mid cadhaysan, taleefankiina wuu ku dhuftay. Maalintii xigtay, markii ay maqashay dhimashada Lauren, ina adeertiis ayaa soo wacday Nathan si ay u aragto inuu la socdo waxa ku dhacay saaxiibtiisii hore. Jawaabtiisu waxay ahayd mid naxdin leh. Wuxuu yidhi hubkii dembiga lagu galay marnaba la heli maayo. Nathan wuxuu sidoo kale u sheegay ina adeertiis inuu ka haystay jiibkii guduudka ahaa ee Lauren uuna geeyey goobta baabuurta la dhigto ee xeebta magaalada, isagoo sharaxay inuu u baahnaa nasiino uuna rabay inuu wakhti la qaato iyada. Markii uu kulanku dhammaaday, heer ilaaliyuhu wuxuu codsaday in Nathan la hayo, isagoon wax damaanad ah lagu sii dayn karin. Maxkamadduna way ku raacday. Cadhada iyo hinaasaha qarsoonaa, qiyaastii bil ka hor intaanay maxkamadayntu bilaaban, kulan kale ayaa dhacay kaas oo shaaca ka qaaday macluumaad cusub oo dhib badan oo ku saabsan eedaysanaha. Sanadkii 2009, Lauren iyo Nathan waxay ku jireen xilli xiriirkoodu mar dhisnaa marna dumi jiray. Lauren waxay sii wadatay nolosheeda, habeen ayeena waxay saaxiibadeed la aaday ciyaar qoobka ciyaar ah. Dadkii ka soo qaybgalay waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro ah oo hore u muujiyey xiisaha uu hayo. Kadib markii ay kala tageen Nathan, Lauren waxay go'aansatay inay fursad siiso xiriir cusub. Labadoodii waxay wada ciyaareen qoobka ciyaar, xitaa dhunkasho ayay wadaageen. Si lama filaan ah, waxaa soo baxay Nathan isagoo xoog u riixay ninkii dhalinyarada ahaa, una hanjabay inuu dhuunta ka goynayo haddii uu mar kale u dhowaado Lauren. Muddo kadib, dhacdadii ciyaarta qoobka ciyaarka waa la ilaaway. Saaxiibadii iyo qoyska Lauren marnaba ma ay arkin calaamado muujinaya tacaddi ka dhex jiray xiriirka. Si kastaba ha ahaatee, waxay ogaayeen in Nathan uu noqon karo mid dadka kale ka maseera oo hinaasa, isagoo cadhadiisu ka sii dari jirtay markii uu cabbo. Maxkamadayntii iyo difaaca waalida iska hor imaadkan oo dhacay 2 sano ka hor dembiga, wuxuu muujiyey heerka ay gaarsiisnayd cadhada iyo hinaasaha Nathan ee ku aadan cid kasta oo u dhowaata Lauren. Markii baarayaashu ay heleen dhaawacyadii ka muuqday jirka Lauren, hadalladii hore ee saaxiibkeed waxay yeesheen macno madow, iyagoo si dahsoon u tilmaamayay in Nathan uu noqon karo gacan ku dhiiglaha. Markii ay maxkamadayntii Nathan bilaabatay 13 bishii 2 sanadkii 2013, waxaa laga joogay 18 bilood tan iyo geeridii Lauren Ashley. Bilowgiiba, dooda looyarada difaacaya waxay sheegeen in Nathan uu sharci ahaan dhimirka ka xanuunsan yahay, uu waalan yahay, iyagoo ku dheganaa sheekadaas muddadii 3 toddobaad ahayd ee ay maxkamaddu socotay. Bilowgii hadalkiisa, qareenka Nathan wuxuu si cad u qirtay in Nathan uu dilay Lauren, balse wuxuu ku dooday in su'aalaha dhabta ahi ay yihiin sidee iyo sababta. Looyarka iyo xaaladda dhimirka ee Nathan, qareenka Nathan wuxuu ku adkaystay inuusan marnaba dabagal ku samayn Lauren kadib markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare. Ma uusan marin agagaarka gurigeeda, ma soo wicin, fariimana uma soo dirin. Sida ay sheegeen qareennadiisu, isagu gebi ahaanba wuu iska gooyey, isagoo ka fogaaday dadka iyo goobaha ay isugu yimaadaanba. Saaxiibadii gabadha ee goobta joogay ayaa xaqiijiyey in Nathan uu ka fogaaday qof kasta, uuna joojiyey tababaradii ciyaaraha, isagoo ka gaabsaday la sheekaysiga dadka. Saaxiibadiis iyo macallimiintiisii hore ayaa bilaabay inay dareemaan walaac maadaama habdhaqankiisu uu isbeddel weyn ku yimid muddo 2 bilood gudahood ah. Ugu dambayntii, qareenku wuxuu caddeeyey in Nathan uu la dhibaataysnaa xanuun dhanka dhimirka ah oo aad u daran, kaas oo tilmaamayay in wax weyn ay ka khaldanaayeen.
bet oo ah hooyadiis ayaa ku qancisay inuu booqdo dhakhtarka dhimirka kaas oo ku ogaaday niyad jab aad u culus oo dhanka caafimaadka ah. tani ma ahayn oo keliya murugo kala tag balse waxay ahayd xanuun maskaxeed oo dhab ah. sida uu sheegay qareenka difaacaye, dhakhtarku wuxuu kula taliyey daawooyin iyo la talin joogto ah, balse Nathan labadaba waa uu diiday. waxaa suurtagal ah inuu la tacaalayay xaalado dhanka caafimaadka maskaxda ah oo ay sababeen kala tagii Lauren Ashley iyo dhaawacyadii isdabajooga ahaa ee madaxa ka soo gaaray xilligii uu ciyaari jiray kubadda cagta ee dugsiga sare. go'itaanka xiriirkooda ayaa laga yaabaa inuu kiciyey xaalad waali ah. Lauren waxay aad uga baqaysay inay iyadu mas'uul ka noqoto xaaladda khatarta ah ee saaxiibkeedii hore, waxayna ka welwelsanayd inuu naftiisa wax u dhimo. habeenkii masiibada iyo falkii garaashka, iyadoo ka welwelsan Nathan, Lauren waxay tagtay guriga qoyska Fujaa maqribnimadii 3 bishii 7 sanadkii 2011. intii ay halkaas joogtay, Nathan waxaa ku dhacay xaalad waali ah oo degdeg ah, taas oo ka dhigtay inuusan awoodin inuu si buuxda u fahmo ama u xakameeyo ficiladiisa. waxay galeen garaashka si ay u wada hadlaan, balse si lama filaan ah ayuu Nathan u qabtay xadhig adag, isagoo ku wareejiyey qoorta Lauren kuna bilaabay eejin. marnaba ma uusan dareensanayn waxa uu samaynayo. jidhkiisa ayaa dhaqaaqayay balse maskaxdiisu waxay ka fogeed xaqiiqada. ma uusan dareemayn wax shucuur ah intii uu falku socday. isagoo weli ku jira xaaladaas maskaxeed ee khalkhalsan, ayuu dhowr jeer dhuunta ka gooyey Lauren. sida ay sheegeen kooxda difaaca, ficiladiisu waxay ahaayeen natiijada waalida. dacwadooda oo dhanna waxay ku dhisnayd sheegashadaas. midda kale, eedeymaha xeer ilaalinta, markii ay u timid xeer ilaalinta, waxay ku doodeen arrin gebi ahaanba lid ku ah difaaca. waxay sheegeen in Nathan Fujaa uu si ula kac la'aan ah oo bareer ah u dilay saaxiibtiisii hore ee Lauren Ashley, sababtoo ah wuxuu u dulqaadan waayey kala taga. xeer ilaalintu waxay ku adkaysatay in kani uusan ahayn dembi ka dhashay cadho degdeg ah, balse uu ahaa qorshe loogu aargudanayo maalintii uu kala tagu dhacay. Nathan wuxuu isku dayay inuu la xiriiro Lauren isagoo dhowr jeer soo wacay goobteeda shaqada. dhab ahaantii wuxuu taleefankeeda gacanta soo wacay 3 jeer ka hor intii aysan dhiman. mid ka mid ah wicitaanadaas waxaa la duubay xilli ay ka soo baxaysay xarunta dukaamada kadib markii ay shaqada dhammaysatay. xeer ilaaliyuhu wuxuu ku dooday in Nathan uu ku qasbay Lauren inay gurigiisa timaado, isagoo si buuxda u ogaa in waalidiintiisu aysan guriga joogi doonin xilligaas. wuxuu markaas u kaxaystay garaashka halkaas oo uu weerarku ka dhacay. baaritaankii meydka ayaa muujiyey in Lauren ay qabtay dhaawacyo ka badan eejinta iyo gowraca dhuunta. waxaa jiray calaamado cadcad oo muujinaya inay isdifaacaysay, taas oo tilmaamaysa inay si adag ula dagaalantay gacan ku dhiiglaha si ay u badbaadiso nafteeda. qorshihii qarsoonaa iyo dhammaadkii maxkamadda. kadib markii uu dilay, Nathan wuxuu iska siibay kabihiisii dhiigga lahaa, wuxuuna gashaday kabo isboorti, isagoo markaas lugaynayay masaafo ka badan 4 mayl ilaa goobta gawaarida la dhigto ee xeebta magaalada, halkaas oo uu kaga tegay jiibkiisii guduudka ahaa. baarayaashu waxay markii dambe heleen furihii gaariga kadib markii uu ku tuuray godka bulaacadda isgaarsiinta ah. Nathan wuxuu markaas lug ugu soo laabtay guriga, wuxuuna Lauren saaray gaarigiisa, isagoo u kaxaystay dhul dhoobo iyo biyo leh. halkaas wuxuu dhex lugeeyey masaafo dhan 33 cagood, isagoo dhex qulqulaya dhoobo qaro weyn, isagoo u muuqday mid rumaysnaa inay salka hoose ee biyaha ku dhiman doonto. laakiin waa uu khaldamay. Nathan ma uusan muujin wax shalayto ah oo ku aadan ficiladiisa. habeenkaas waxaa la arkay isagoo guriga ku soo laabanaya isagoo qaawan, uuna kaxaynayo gaariga iyadoo daaqaduhu u furan yihiin, muusikaduna ay aad ugu dheeraysan tahay. intaas kadib, ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu habeeyey goobtii dembigu ka dhacay, wuuna qariyey caddaymihii. wuxuu qariyey kabihiisii qoynaa ee dhiigga lahaa iyo dharkiisii, wuxuuna dhiigga ka nadiifiyey garaashka, isagoo si degan u sugayay inta waalidiintiisu soo laabanayaan. xeer ilaalintu waxay ku doodeen in kani uusan ahayn xaalad waali ah oo lama filaan ah sida uu qareenkiisu sheeganayay, balse uu ahaa weerar si ula kac ah loo qorsheeyey. dhakhtar ku takhasusay baaritaanka dembiyada oo u marag kacayay dhanka qareenka ayaa sheegay, isagoo cuskanaya cilmi baaris xirfadeed, in Nathan uusan awoodin inuu fahmo in ficiladiisu ay khaldan yihiin.
sida uu sheegay dhakhtarku, awood darradan waxay ka dhalatay niyad jab daran, dhaawacyo isdaba joog ah oo madaxa ka gaaray xilligii uu ciyaari jiray kubadda cagta iyo isticmaalka maalin kasta ee daroogada iyo khamriga. maadaama uusan horay u jirin taariikh tacadi oo ka dhexaysay Lorraine iyo Nathan, ninkii dhalinyarada ahaana uusan marnaba booliiska wax dembi ah uga diiwaan gashanayn. qareenku wuxuu ku adkaystay in tani ay ahayd khalad hal mar dhacay iyo in Nathan uusan dembigan geysteen isagoo miyirkiisu dhan yahay. doodahan ayaa gebi ahaanba ka hor yimid sheekadii xeer ilaalinta. dhakhtar kale oo isna ku takhasusay baaritaanka dembiyada ayaa loo yeeray si uu u qiimeeyo xaaladda maskaxeed ee eedaysanaha. dhakhtarkan wuxuu ka marag kacay in Nathan uu miyirkiisu dhan yahay markii uu dilay Lorraine. heerka qorshaynta iyo dadaalka uu geliyey dembiga ayaa muujiyey in ficiladiisu ay ahaayeen kuwo bareer ah, uuna fahamsanaa cawaaqibka ka dhalan kara. dhegaysiga dacwaddu waxay ahayd mid dareen ahaan aad u adag. markii ay maxkamaddu dhammaatayna, hooyada dhashay Lorraine, Ashley, waxay fadhiday iyadoo ku jirta xanuun iyo murugo aamusnaan ah. baaraha caafimaadka ee gobolka ayaa u sheegay maxkamadda in Lorraine laga yaabo inay noolayd dhowr daqiiqo iyadoo dhiig baxaysay kadib markii uu Nathan Fuja ku ceejiyey xadhig kadibna dhuunta ka gooyey isagoo ah 20 jir. Nathan wuu foorarsaday wuuna ooyey isagoo u muuqday inuu markaas uun dareemayo culayska falka uu geystay markii uu garowsaday inuu wajihi doono ciqaab maadaama uu naf gooyey. waalidiinta Nathan waxay ahaayeen kuwo aad u naxsan oo ay ruuxday in wiilkoodu uu ku kici karo fal noocaas oo kale ah. isu turashada labada qoys iyo xukunka maxkamadda, waalidiinta Nathan mar walba waxay muujiyeen daryeel iyo jacayl weyn oo ay u qabeen wiilkooda, waxayna saaxiibtiis Lorraine u daryeeli jireen sidii inay tahay gabadh ay iyagu dhaleen. tani waxay ka dhigtay inay si kasii daran uga welwelaan qoyska Ashley oo waayay gabadhoodii keliya ee ay dhaleen Nathan dartiis. labada qoys waxay hore u lahaayeen xiriir dhow oo diiran, laakiin masiibadan kadib waxaa looga tegay inay wajahaan cawaaqib xun oo aad u xanuun badan. waalidiinta labada dhinacba waxay ahaayeen kuwo qalbi jabsan. 7 bishii 3 sanadkii 2013, Nathan waxaa lagu helay dembigii lagu soo oogay oo dhan. heerbeegtida waxay ka doodeen dembiga maalin dhan ka hor intaysan gaarin go'aankooda. cadaaladiina ugu dambayntii waa loo meel mariyey qoyska Ashley iyo xeer ilaalintaba. haddaba maxay tahay raaxada ay tani keeni kartaa iyadoo gabadhoodii keliya ay weligeed maqan tahay? markii xukunka la akhriyey, Malcolm oo ahaa aabbaha dhalay Lorraine ayaa ku dhex gudbay hoolka wuxuuna habsiiyey waalidiintii Nathan. wuxuu fahamsanaa inay labada qoysba waayeen wax qaali ah oo aan qiyaas lahayn. ficilkiisu wuxuu tusaale u ahaa xoogga dabeecaddiisa iyo niyad samihiisa. ciqaabta iyo dhaxalka Lorraine, Nathan Fuja waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. gobolka Massachusetts, qof kasta oo lagu helo dembi ah dil heerka koowaad ah waxaa lagu xukumaa xabsi daa'im iyadoo aan marnaba loo ogolaan cafis shardi ah. waalidiinta Lorraine waxay rumaysnaayeen in dhimashadeeda laga hortegi karay. kadib markii ay waayeen, waxay noloshooda u hibeeyeen inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan khatarta xiriirka iyo rabshadaha ka dhasha kala taga. Malcolm iyo Mary waxay aasaaseen hay'adda xusuusta Lorraine Ashley oo ah urur aan faa'iido doon ahayn oo dhiirigeliya farshaxanka, ka qaybgalka bulshada iyo xiriirka caafimaadka qaba ee dhalinyarada, kuwaas oo dhammaantood ahaa waxyaabo ay Lorraine aad u jeclaan jirtay. cabsi cusub iyo isbeddelka sharciga. bishii koowaad ee sanadkii 2024, maxkamadda sare ee Massachusetts waxay laashay sharci dhigayay in qof kasta oo ka yar 20 jir xilligii uu dembiga galay uu mudan xabsi daa'im oo bilaa cafis ah. waalidiinta Lorraine hadda waxay ka baqayaan in isbeddelkan uu oggolaado Nathan Fuja in xabsiga laga soo daayo. waxay la tacaalayaan fikirka ah inay rumaysan yihiin in ninkii dilay gabadhoodii oo ahayd 18 jirka uu ku jiro xabsiga inta noloshiisa ka dhiman. haddii aad u aragtay kiiskan mid xiiso leh, ha ilaawin inaad calaamada laayigta saarto muuqaalka kuna soo biirto boggayaga. waxaan soo gelinaa muuqaallo ku saabsan dembiyada habeen kasta. ilaa mar kale, iska jira oo feejignaan dheeraad ah muujiya.